الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضبي لباتنات يا كتاب كيني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله ولي كلمات كيبان كجرنا كوكوبنا شيخ وحو يري الله سبحانه وتعالى وحو كو أبال مريا أدونك عمل كيسا مرول بعملك واد سمينيسو wax isagii u dhigma ayaa lagu abaalmariyaa qofkii waman taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayra mima tarak wuxuuna soo qaatay xadiid rasuulka oo saxiix ah qofkii ilaahay dartii wax uga tagana alla wuxuu ugu bedelaa waxaas wax ka khayr badan buu ugu bedelaa wax walba oo aad alla dartii uga tagtay ilaahay wax ka fiican buu kugu bedelayaa haddaba shayga waxaan nidhi shaygii uu sameeyey shay u dhigma ayaa lagu abaalmariyaa tusaale haddii ruuxu indhihiisa uu laabay oo qadul basar uu ku dhaqmay oo xumaanta indhihiisa uu ka laabay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku abaalmarinayaa in basiiradiisa iyo araggiisa uu u sii daayo aragga qalbiga iyo aragga nuurka ilaahay u fasaxo ciwad iyo bedella kaa uga dhigo kadibna qofkaa loo furo baabulcilmi waaliimaan waalmacrifa ilaahay albaabkii cilmiga iyo iimaanka iyo garashada alla uu u furo subxaanahu watacaala marka wuxuu indhihiisiiba xumaantii ka celiyey markaasaa basiiradiisii qalbiga loo sii daayey ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey inuu wax walba u xifdin karo uu markaa uu baranayo wuxuu sheekhu kusoo guuriyey bejka ama bogga 413 kitaabka adaawa dawaa ayib caqliga ayuu ka hadlay sheekhu wuxuu yihi annadaru fi lcawaaqib yacni qofka sidiisaba khaasatu lcaqli yacni caqliga qofka leh oo caqliga isugarashadiisu dhab tahay waa qofka fiiriya cawaaqibta arrintan waxa ka imaan kara haddaba qofka ugu caqli badan dadka waxaa weeye buuhi qof doortay ladda macaanka iyo raaxada shayga aan dhammaanaynin baa wuxuu ka doortay shay dhammaanaya oo hadda soconaya macaankeediibuu macaanka weyn ee aakhara buu ka dooranayaa qofka dadka ugu caqli xun ama ugu liitana waa qofka wuxuu yihi nicmo weligeed joogi lahayd iyo xayaato abadi oon dhammaateen ayaa intuu isdhaafiyey ayuu mid hadda dhammaanaysiyo waxoogaa yar oo lada ah macaansi yar oo hadda jooga ayuu ku bedeshay buu yidhi taas oo weliba aalaam iyo makhaawif iyo dhibaato iyo howlo badanna ay la socdaan tegina haysa arrintaas sheekh wuxuu kusoo guuriyey bejka 450 kitaabka adaawa dawaa ee uu leeyahay waxaa kaluu sheegay hadal kale oo ah al abraar dadka waa wanaagsan sidoodaba dadka fiican nicmay ku jiraan xitaa haddii noloshooda adduunka ay adag tahay waad aragteen dad badan oo wanaagsanaa adduunkan nolol adag bay ku jireen rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam baa guryihiisa marka qaarkood al aswadaan 3 bilood oo bishay ayaa al aswadaan laga quudan jiray waa biyo iyo timir ayaa cunto u ahaa marka oo calooshiisa ayuu ku xidhi jiray dhagaxa lagu xidhi jiray iyo marada lagu xidhi jiray gaajo daraateed marka in qofka adduunka wax badan uu haysto micnaheedu ma inuu fiican yahay taa daliil uma ah inuusan ku jirin nicmo iyo raaxana ma aha raaxa waxaa ku jira dadka wanaagsan raaxay ku jiraan xitaa hadday noloshoodu adag tahay adduunka raaxay ku jiraan dadka kalena adduunkuna cidhiiri buu iyaga ku noqonaya dadka fujaarta ah jaxiimay ku jiraan xitaa adduunka hadday xoolo badan haystaan adduunka haddaad aragtaan dadka ugu maalqabeensan ayaa ugu dhib badan adduunka ma seexdaan oo ma nastaan oo guryahooda kuma raaxaystaan oo reerkooda lama raaxaystaan oo nolol kuma noolaa 24 saac waxay ku jiraan xisaab iyo daba orod iyo fikir iyo waxbaa khasaaray iyo wadna xanuun iyo dhibaatadaasi ku nooli saas uu isugu jiro unbuu adduunkana kaga baxaya marka dadkan fuqarada ah عيش نول waxay ku jiraan wanaagsan bay ku jiraan طيب ma jiro laa yasqud xaqul khayr xaqa oo dadka kale aad ka gashay kuma haro bitooba
yacni toobo uun sida aad ku samayso faaxishadoo kale haddaan kasoo qaadno, zinadii aan sheegay nin reer ninka la leeyahay zine ku sameeyey, inaad tidhaahdo uun aad allah u toobad keento oo keliya ku hadhi mayso, ee xaqii addoonka laga galay baa baaqi ah, oo qofkii gogoshaan lahaa xaqii aad ka gashay ayaa weli baaqi ku ah oo isaguna jooga. marka taasina waa hadal uu sheekhu kusoo guuriyey bejka 503 kitaabka addaawa dawa. dabcan kutubtu isku wada dabcana ma aha, isku wada midna marka maaha, midka aan hayo waa intaas bejkaas ayuu kusoo guuriyey sheekhu. ilaahi subxaanahu watacaala toobadeena mid nasuuxa allah ka dhigo, mid dhab ah oo ilaahay darti loola jeedana allah ka dhigo. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.